kadib soo dhaweynta salliga nabiga ugu muhiimsan soo dhawow ayaan leenahay ugaaska 19aad ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim marwooyinii mudanayaal xafladan waa xaflad dhaqameed waa xaflad taariikhiya oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu soo agaasimay maadaama uu Djibouti uu joogo ugaaska cusub oo aan leenahay ilaahay ha ku dhib yareeyo hawshaada ilaahayna ha ka dhigo kii ummadda u horseeda wanaag
فلي بالراديو بس حير ليه وقال صونها ربنا وفلا ومالك لا لنا ومالك وبراي هليوي ومالك لا لنا روبي ومالك وبراي هليوي ومالك لا لنا روبي ومالك وبراي هليوي ومالك لا لنا روبي marwooyin iyo mudanayaal waxaa kaloo xusid mudan inay halkan nala joogaan odayaashii dhaqanka ee guddigii hawshaasi muddo dheer ku jiray waxaan jeclahay isla kaalintaan ugu talagalnay xafladan qada sharafeedka inaan ku soo dhaweeyo halkudhigga ah shinnida iyo asaageega malabka iyo abuurkeega isku uursanaanteeda ugaaska mid la mida aanu ahaano waana tii hore loo yidhi dhaqankaaga waa lagu faanaa ee lagama faano gobollada xarbi